dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta badan ku soo dhawaada barnaamijka wixii cusub ee Gaacar Media TV. Mareykanka oo ogolaaday aaladda teknoolojiyadda microchips in jirka dadka la dhexgelin karo. Shirkadda Neuralink ee hantiilaha Elon Musk leeyahay ayaa lagu soo waramayaa in ogolaansho loo siiyay si ay aaladda microchipska u dhexgeliso ama u dhaxaasto dadka, gaar ahaan muwaadiniinta Mareykanka ku nool kuwa raba. Halkani waa Gaacar Media TV. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan ku soo dhawaada barnaamijka wixii cusub ee Gaacar Media TV. Barnaamijka wixii cusub ee Gaacar Media TV alaaba waxaan idinkugu soo gudbinaa arrimaha sayniska, teknoolojiyadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada, caafimaadka iyo wixii la mid ah. Haddaba dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, intaan u gudagelin warbixintaasi xiisaha leh, fadlan marka hore subscribe, share, like iyo follow dhaha page-ka iyo channel-ka Gaacar Media TV ee aan ku kala leenahay Facebook iyo YouTube-ka. Waa mahadsantiin. Aan ku bilowno. Shirkadda Neuralink ee hantiilaha Elon Musk uu leeyahay ee ka shaqeysa arrimaha teknoolojiyadda la xiriirta ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 2016. Ujeedada shirkaddan ayaa lagu sheegay in ay tahay sare u qaadidda garaadka maskaxda ama caqliga iyadoo gudaha jirka dadka la dhexgelinayo ama lagu dhex aasayo aaladda microchips. Shirkaddan inkastoo howlaheeda bilaabitaankooda u qorshaysneyd sanadkii 2020, haddana arrimaha sida shirkadda oo shaki ka qabtay natiijada hawshan cadaadis kaga imaanayay xirfadlayaal kala duwan dhinaca teknoolojiyadda iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa la ogaaday in ay ahaayeen dhibaatooyinkii ku horgudbanaa shirkadda. Shirkadda Neuralink ayaa sheegtay in aaladda microchipsiga ay tijaab ahaan loo dhexgeliyay ama lagu dhaxaasay jirka raaxan daanyaro ah, iyadoo shirkaddu sheegtay in ay xaqiijiyeen kororka garaadka ama caqliga daanyarada kadib markii ay aaladda microchipsiga la dhexgeliyay jirka daanyarada. Inkastoo shirkadda Neuralink ogolaansho loo diiday hadda ka hor, dhowaan ayay ahayd markii shirkaddu sheegtay in ay ogolaansho ama fasax ka heshay xarunta maamulka dabagalka daawooyinka iyo cunnada Mareykanka ee FDA si ay u bilowdo hawshan aaladda microchipsiga ee jirka bini'aadanka la dhexgelinayo, gaar ahaan qofkii rabo. Sidoo kale warbaahinta BBC-da ayaa sheegtay in shirkadda Neuralink ogolaansho loo siiyay si ay aaladda microchipsiga gudaha jirka dadka loogu dhaxaaso, iyadoo ujeedada loogu sheegay sare u qaadidda garaadka ama caqliga bini'aadanka. Aaladani microchips markii jirka bini'aadanka la dhexgeliyo, waxaa la sheegayaa in ay aaladani awood u yeelanayso maamulka maskaxda qofka, taasoo si toos ah fariimaha iyo go'aamada maskaxda ka imaanaya in ay aaladani si toos ah u gaarsiinayaan maskaxda, taasoo micnaheedu yahay maskaxda qofka iyo aaladda microchipsiga inay wada shaqaynayaan. Sidoo kale aaladda microchips ee jirka bini'aadanka lagu dhex aasayo, wadamadii ugu horreeyay ee adeegan bilaabay waxaa ka mid ah dalka Sweden sanadkii 2019, iyadoo Sweden muwaadiniinteeda ay u ogolaatay, gaar ahaan kuwa raba in aaladda microchipsiga jirkooda lagu dhaxaaso ama la dhexgeliyo. Aaladani microchipsiga waxaad ku kaydsan kartaa sida la sheegay xogta shakhsi ahaaneed nooc walba ee ay tahay. Aaladda microchips ee xubnaha jirka ka midka ah ee lagu dhaxaasayo waxaa ka mid ah gaar ahaan gacmaha ayaa aaladda microchipsiga, gacanta dhinaceeda ayaa aaladda microchipsiga qofka laga gelinaya ama looga dhaxaasaya. Ogow, nimco walba nusqaanteeda ay leedahay. Microchipsiga jirka dadka lagu dhaxaasayo ama la dhexgelinayo waa rabitaan ee maahan qasab, sida ay sheegtay shirkadda Neuralink ee Elon Musk uu leeyahay ee dalka Mareykanka. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, intaa waxaa inooga eeg barnaamijka wixii cusub ee Gaacar Media TV. Barnaamijka kan xiga intaan ku kulmi doono, nabadiino.